qiimaha lagu sarrifo lacagaha qalaad ayaa hoos u dhacay suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland kadib doorashadii madaxweynaha ee ka dhacday deegaanada Puntland. Suuqyada magaalada Garowe ee lagu sarrifo lacagaha ayaa saakay qiimaha sarrifka $100 waxa uu ka marayaa 3 milyan oo shilinka Soomaaliga ah, halka horey uu u marayay 3 milyan iyo 500. waxaana hoos u dhaca doolarka loo sababeynayaa lacagaha shilin Soomaaliga oo yaraaday iyo doorashada sida ay sheegeen sariflayaasha ka ganacsada sarifka. doolarku saaka wuxuu marayaa 3 milyan halka uu ka horeeyay ahaa 2 milyan iyo 3 milyan iyo 500 ilaa shala galab isbedel weyn baa ku yimi. isbedelkaas oo bulshada iyo dadka iyo shacabka reer Puntland oo dhammaan aad iyo aad u daneynayeen. saaka wuxuu marayaa 3 milyan baa hadda lagu sarifanayaa. waxyaabo badan baa isbedelka waxyaabo badan baa keeni kara. waxa ugu horeysay isbedelku horta Puntland oo dhan buu ka dhacay oo madaxweyne cusub oo inoo yimi. madaxweynaha cusub waxaanu aaminsanahay inuu la yimi jawigiisa iyo ma garanaysaa isbedelkiisa baaxadda leh. marka warqad uu soo saaray baa la yiri madaxweynuhu markii ugu horeysay uu yimi uu ku xakamaynayo lacag badan oo wadanka soo galgala. marka waxaanu aaminsanahay halka isbedelka ugu weyn inuu isbedelka yahay. midda labaad waxa weeye isbedelka labaad oo ku yimi kaashkii aad u yaraaday oo doolarkii $100 badan magaalada soo galay. iyadana halkaas isbedelka labaad uu kaga yimi. saakay ilaa shala galab doolarkii wuxuu u dhacay hoos. saakadan hadda wuxuu marayaa 3 milyan buu gacanta oo marayaa, gacanta dambana wuxuu marayaa 3 milyan iyo 100. markay dadka niyadooda aad bay u degan tahay doolarkuna inuu hoos sii dhaco baan rajaynaynaa. markii hore waxaanu ku sarifaynay shala subax waagu wuxuu ugu bariyay 3 milyan iyo 500 iyo 3 milyan iyo 400. shacabka magaalada ayaa dhankooda soo dhaweeyay hoos u dhacan ku yimid qiimaha sarifka, waxaana ay fariin u direen madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyaga oo ka codsaday inuu xad u sameeyo sarifka lacagaha. gabdhaha suuqleyda inji oo suuqa ka ganacsada baan ahay. doolarkii waa naga degay 3 milyan buu hadda marayaa. haddana waxaan jecelahay inuu hoos u sii dego. saaka waabaa noo bariyay bilicsan waa bariyay arooryo baxsan weeye. doolarkii wuxuu marayaa 30. waxaanu doonaynaa anigoo ka hadlaaya ka duulaya hooyooyinka magaalada Garowe ka mida shacabku waxaanu doonaynaa doolarka 30 walina hoos loo celiyo dadka masaakiinta in loo naxariisto. bararku saameyn aad u badan buu nagu hayay. $100 baa waxay nagu noqdeen 50 milyan. haddeerna kunkii baa waxay nagu noqonayaan 25 milyan ama 20 milyan ugu noqonaya. waayo doolarka qaaliga baa wax nagu qaaliyeynaya. beledweyne aan lacag u dirsanaa 2 milyan iyo 200 baa noo ku sarifaa. annagana 3 milyan iyo 600 baa noo ku sarifaa. intee u dhaxaysa farqi? oo sicir barar baahsan baa wadankii taabtay oo danyartii baa baabacday oo ganacsatada xoolahoodii baa lumay oo wax noo haray oo noo nool ma jiraanin oo rabbiga subxaanahu qaadir inuu naga jabo oo meeshiisii ku cesho 2 milyan iyo 200 2013 intuu ahaa in lagu celiyaan rajaynaynaa insha Allah bismillaah karim si rabbi laga rajaynayo. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Universal TV Garowe.